wakiilka Mesut Ozil ee Dr. Ergo Tagat ayaa ka hadlay mustaqbalka xidiga uu dalaalka ka yahay ee Mesut Ozil wuxuuna xaqiijiyay in mustaqbalka laacibka u dhashay wadanka Jarmalka uu dhex yaalo gudaha garoonka Emirates Stadium waana qalcadda garoonka ay ku ciyaarto naadiga Arsenal. 30 jirkan ayaa lala xiriirinayay inuu isaga tagayo kooxda reer London ee Gunners suuqa xagaaga kadib markii uu tababaray Unai Emery ka saaray qorshihiisa qaar ka mid ah kulamadii dhawaa ay kooxdiisa ciyaartay. Ozil ayaa saxiixiisa lala xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub oo ay ugu horeyso naadiga Paris Saint-Germain si la mid ah Inter Milan iyo kooxdii kol hore uu ka tirsanaa ee Real Madrid. Haddaba wakiilka ciyaaryahan Mesut Ozil waxa uu yiri Mesut Ozil waxa uu saxiixay heshiis cusub bishii Janaayo ee la soo dhaafay sababtoo ah wuxuu arkayay in mustaqbalkiisa uu yaalo kooxda Arsenal mana jirin wax iska bedelay maskaxdiisa. Wuxuu doonayaa inuu sii joogo Arsenal inta heshiiskiisa uu taagan yahay waxaana laga yaabaa inuu waqti ka sii badan sii joogo. Ozil boqolkiiba boqol wuxuu ku kalsoon yahay kubadda cagta kooxda Arsenal uu jecel yahay kooxda mana doonayo inuu meel uu uga dhaqaaqo. Si kastaba ha ahaatee ciyaaryahanka ka soo jeeda dalka Turkiga hase ahaatee qaatay dhalashada wadanka Jarmalka kuna guuleystay koobkii adduunyada ee 2014 ayaa hadda waxa uu yahay mid kooxda dhaawac kaga maqan kana maqnaa labadii kulan ee la soo dhaafay balse kulamada soo aadan inuu tamahashiisa dib u helo ayaa la filayaa.